bani aadam baahidaada ha u sheegin baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadanka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bugtaan badan baa la isku nacaa taasay leeyihiin bini aadan haddaad tirahdid keen oo ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino maalik binu diinaar raximahullah habeenada ka mid uu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra ina yaroo shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya 3 maalmood yarkaasi cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u geeba lagu yidhi manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey miskiidkii u yimid wuxuu soo galay ina yaroo shaab oo ducaysanayo shabaabkeena iyo shabaabkaas ku eg cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysa ku yaallaa waddadaad saa u soo mar sidaa u soo mar allii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maad i taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaadaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaaca bas